maalin wanaagsan kuna soo dhawaada daawadayaal barnaamijkii tooska ahaa ee wardoon oo waqtiyadan oo kale aad ka daawataan telefishinka Somali Cable marka laga tago maalmaha Khamiista iyo Jimcada iyo waliba maalmaha kale ee munaasabadaha gaarka ah ay jiraan wardoon mar walba waxaan idinku soo gudbinaa wararka iyo dhacdooyinkii ugu dambeeyay ee dalka qodobada maanta aan idinku haynana waxa kamid noqonaya isla markaasina aad ku daawan doontaan hadii Allah awoodda laga helo qasaarihii ka dhashay qaraxyadii isxigxigay ee maanta ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo iyaduna ka tacsiyeysay garidii ku timid Allah u naxariistay wariye Cawil Daahir Salaad oo kamid ahaa wariyaashii markaasi ku dhintay qaraxii ka dhacay magaalada Muqdisho maanta waxa kale oo eegi doonaa hadii Allah awood laga helo duleedka magaalada Jowhar meel 2 kiiloomitir u jirta oo ay bar control ku taalay oo qarax ka dhacay isla markaasina ay ku dhaawacmeen askar halkaasi mareysay waxa kale oo idin soo gudbin doonaa qadarka barnaamijka oo soconaya hadii Allah awood laga helo wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo waliba duulista hawada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya oo beeniyay warar markaasi baraha bulshada la isla dhex qaadayay oo sheegayay in uu xabsi ku jiro kadib arrimo la xiriira musuqmaasuq wasiirka arrimahaasi beeninaya ayaan barnaamijkeedin kugu haynaa sidoo kale hadii Allah awood laga helo daawadayaal waxaan idin soo gudbin doonaa hay'adda dambi baarista ee Soomaaliya oo markaasi soo qabatay rag markaasi ay sheegeen in ay ku guda jireen sameynta dokumentiyo iyo baasaboorro been abuur ah waxa laga soo qabtay suuqa bakaaraha gaar ahaan Cabdulla Shideeye qodobadaasi wixii nagu soo kordha ayaan dabcan idinku soo gudbin doonaa qadarka barnaamijka wardoon oo soconayo anigoo saaxiibkiin Cabdulqaadir Umar Cabdulla Fiidka ayaa barnaamijkeedii la socodsiinaya waxa xagga farsamada iyo kaamirada kaaga mahad celinaya saaxiibka Ismaaciil all right una diyaar garooba gudagalka barnaamijka waatay daawadayaal waa maalinimo sabtiya taariikhduna ay ku asteysan tahay 22 bisha 12 ee December sanadka sii dhamaanaya 2018 waxaynu ku bilaabeynaa qasaarihii ka dhashay qaraxyadii isxigxigay ee maanta ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya qaraxa koowaad ayaa ka dhacay bar control oo ay ciidamada madaxtooyada Soomaaliya ku leeyihiin tiyaatarka qaranka Soomaaliyeed qadar hal saac wax aan ka badnayn sidoo kale waxa dhacay qaraxii labaad oo asna marka ahaa gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay oo ka dhacay inta u dhaxaysa taalada daljirka daahsoon iyo waliba halka laga galo iridka hore ee godka jilco hadaba wararkii ugu dambeeyay iyo qasaarihii ka dhashay qaraxyadaasi isxigxigay wariyahayaga Maxamed Cismaan Daahiya ayaa warbixintan ku eegaya magaalada Muqdisho ayaa mar qura isbedelay kadib markii qarax gilgilay magaalada uu ka dhacay bar control oo ku taala meel u dhow guriga hooyooyinka iyo xarunta murtida iyo madadaalada qaranka qaraxa oo la eegtay barta control ayaa waxa ku geeriyotay sida goobjoogiyaal ay sheegeen in ka badan 6 ruux halka tobaneeye kalena ay ku dhaawacmeen wadooyinka magaalada Muqdisho gaar ahaan wadada gasha madaxtooyada ayaa si toos ah u shaqeynaysay isla markaana bulshada reer Muqdisho caaliyan ay u isticmaalayeen wadada laakiin jawiga ayaa mar qura isbedelay kadib qarax gilgilay guud ahaan magaalada Muqdisho qaraxa oo ay dad badan ku dhinteen ayaa waxa kamid ahaa 4 kamid ah howlwadeenada telefishinka Universal oo uu kamid yahay wariye Cawil Daahir Salaad Allah u naxariistay wariye Cawil Daahir Salaad ayaa qaraxa koowaad la kowsaday isagoo oo banayay marka qaraxa uu dhacay barta qaraxa la bartilmaameystay dadka ku dhaawacmay ayaa sidoo kale waxa kamid ahaa xildhibaan ka tirsan golaha baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya xildhibaan Joodax iyo gudoomiye ku-xigeenkii arrimaha amniga iyo siyaasadda ee gobolka Banaadir Maxamed Cabdullaahi Tuulax qaraxa labaad ayaa isaguna ka dhacay bar control oo ay degnaayeen ciidamada nabad sugidda gobolka Banaadir iyadoo oo goobtaasi ammaankeeda aad loo adkeeyay kadib markii qaraxa koowaad uu ka dhacay xarunta murtida iyo madadaalada qaraxa labaad ayaa qasaarihiisu ahaa mid uu kooban yahay balse waxa kamid ahaa dadkii ku dhintay isaguna macallimiin wax ka dhigay iskuul goobta ka dhawaa waxaan u dambeeyay horta maasha Allah mid aad u weyn oo Ilaahay muddo ku badbaadiyay laba niman ku dhaawacmeen wax kalena uma jeedin aniga baawrku waxa uu kamid ahaa markaan gool soo galay saarif madow ahayd saan jeclay aniga isgoos wadana soo galay mootna muudana waa soo lagayna xaafadana soo soo kaarana degnaa laba niman ku dhaawacmeen
qarax markaa dhacay meesha idla hogaan waa haysay asgarood ilaa ay joogteen meesha wala ilaa gaarigiina mar waa la arkay gaariga waa la fashilay socodka dadkii qaabka sidee ahayd marka waa xirnay markaas ma furnayn aniga waa ana wali celinay qarax dhacay ilaahay ma hadis markii dadkii gurmudka gaari waa la arkay halka fogaada la shacabku waa loo sheegay in taraafiga uu sheegay soo taagan in taraafigan uu mahad celinayna si shacabkana u badbaadiyaan dadka ku dhintay qaraxa ayaa waxa ay u badnaayeen ciidamada ilaalada madaxtooyada qaranka maadaama goob muhiim ah ay ahayd meeshaas isla markaana meelaha ugu muhiimsan ee madaxtooyada qaranka laga ilaaliyo ay ahayd magaalada muqdisho maalmihii la soo dhaafay waxa uu ahaa jawigeeda mid uu degan yahay maadaama ciidamada ammaanka ay aad ugu howlanaayeen sidii ay u xaqiijin lahaayeen ammaanka dhawaan ayay ahayd markii ay qabsoontay munaasabada ciidamada booliska Soomaaliyeed oo xilligii la aasaasay 75 sano kadib ay u dabaaldegayeen iyagoo oo sheegay in ammaanka magaalada Muqdisho uu yahay mid muhiim ah isla markaana ay ka shaqeynayaan waqtigan hawshiisa ay wadaan laakiin magaalada Muqdisho mararka qaar waa sidan oo qaraxyo ayaa ka dhaca iyo dilal qorsheysan oo lagu bartilmaameysto shakhsiyaad gaar ah lama garan karo qorshaha dhabta ah oo ay dawladda Soomaaliya ka leedahay hanaanka amniga maadaama mar waliba ay sheegto in ay amniga dalka sugtay laakiin mararka qaarna ay dhacaan qaraxyo sidan oo kale oo ay ku nafwaayaan dad Soomaaliyeed ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa hore u ballan qaaday in uu sugayo amniga maadaama isagu uu hoggaanka u hayo xukuumadda waqtigan jirta iyadoo oo magaalada Muqdisho inta badan mararka qaar ay ka dhacaan falalka noocan oo kale ah isla markaana ay dhibaato ku tahay dadka shacabka ah ee ku dhaqan magaalada caasimadda war qoraal ah oo ka soo baxay al-shabaab ayaa lagu sheegay in lahaanshaha qaraxyadani ay iyagu leeyihiin isla markaana ay ku beegsadeen goobaha ciidamadu ay degan yihiin taas oo ay u arkayaan in ay iyagu ka soo horjeedaan dadka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwooda ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa isweydiinaya mararka qaar talo Muqdisho qarax ma ka dhamaan doona iyo dilalka qorsheysan oo la bartilmaameysto shakhsiyaadka Maxamed Cismaan Muqdisho Somali Cable waatay daawadayaal qaybihii hore ee barnaamijka wardoon ayaad la socotaan warar dhowr oo Soomaalida la xiriira ayaa inoo soo socda balse markaana wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo waliba duulista hawada Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar ayaa beeniyay warar baraha bulshada la isla dhex qaaday saacadihii ugu dambeeyay oo sheegayay in uu xabsi ugu jiro arrimo la xiriira musuqmaasuq haddaba wasiirka wasaaradda duulista hawada Jamhuuriyadda Soomaaliya oo warbaahinta gudaha magaalada caasimadda ah ee Muqdisho kula hadlay ayaa ka hadlay arrimahaasi waxyaabaha dacayadaha ah marka aad waajibkaada gudanayso waxaa laga yaabaa mararka qaarkood in ay soo gasho dan shakhsi uu lahaa inaad hor istaagto adigoo danta dalka gudanaya marka waa dacayado la sameeyey aniga Soomaaliya waxaan ka tagay anigoo arday ah weligeyna kambani kama furan kambani qof kale uu ii hayala ma jirto ganacsina kuma lihi gurina kuma lihi wax kale oo ku leeyahay ma leh Soomaaliya waan xaan imid 2017 bishii Maarch dhamaadkeeda waxaan imid maalintii la dhaarinayay ama maalintii ka horreysay midkood baan imid marka wax shirkadaasna 2014 ayaa la soo diiwaan galiyay heshiiska la saxiixay 2014 ayaa la saxiixay bishii April markaan shaqada bilaabay shirkadaas waxay nala soo shaqeynaysay ilaa iyo 30 October 6 bilood ayay filayaan waqti ah inay shirkadaasi nala shaqeynaysay oo kaliya isla markiina bishii October dhamaadkeedina aniga ayaa shaqada ka joojiyay marka waa iska been abuur dad dana leh ama dawladda mucaaradku ah ama aniga si shakhsi ah wax iyaga soo horjeeday inay wax badan oo hadda runtii dhib ah iyo culeys oo igu haysana arintaas ma jiro waxaan ogahay marka qofku uu waajibaadkiisa qaran gudanayo dano kambaniye iyo shakhsiyaad ayuu ka hor imaanayaa isagoo oo danta dadweynaha eegayo marka dacayado iyo wax ka badanba dacayad waa wax yar dilal iyo dacayadaba waan rajaynaynaa marka waa wax caadi ah oo runtii waxaan jaxin jirtayna ma shirkadana waa shirkadii casriyeysay laysanada iyo taargooyinka intaba shaqo fiican soo qabatay shaqo fiican haysay maadaama shaqadaasi ay dawladda qaban karto ayaan dawladda ugu soo wareejinay si aan ugu gudubno deyn dhaafka wadanka aan codsanaynay
waxyaabaha shuruudahana lagu xiray ayaa wax ka mid ah shaqooyinka aad qaban kartiin inaan qabanno waan qabanaa si wanaagsan way ku socotaa dacayadahaas yaryarna runtii wax weyn oo hadda oo dhib ah oo nagala maqan yihiin malaha kuwaas iyo kuwa ka badan inta waan rajaynaynaa soo socdaan waa hagaag daawadayaal wardoon ayaad la socotaan oo si toos ah magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya idinkaga imaanaya isla markaasina aad ka daawanaysaan telefishinka Somali Cable markaana hay-adda dambi baarista Soomaaliya ee CID da loo yaqaan ayaa sheegtay in markaasi ay soo xireen rag markaasi lagu eedeeyay in ay ku guda jireen diyaarinta dokumentariyo iyo waliba baasaboorro been abuur waxa laga soo qabtay gudaha suuqa Bakaaraha gaar ahaan suuqa Cabdilla Shideeye oo inta badan lagu sameeyo dokumentiyada iyo waliba shahaadooyinka been abuurka ah taliye ku xigeenka hay-adda dambi baarista Soomaaliya ee CID da Bashiir Abshir Geedi ayaa warbaahinta la hadlay kadib soo qabashadii raggaasi alaab looga soo horjeedo qarannimada iyo dowladnimada Soomaaliya oo falsification oo lagu soo qabtay magaalada Muqdisho gaar ahaan Bakaaraha goobta loo yaqaan magaceeda Cabdilla Shideeyaha waxaa iska kaashaday arrintan hoggaanka waxaa iska kaashaday hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha oo runtii yacni ruux warqado been abuura inuu ku dhoofo rabay ka soo qabtay aeroboortka Aadan Cadde International ruuxaas baaristii aan ku samaynay kadib waxaa noo furmay kiiskan meeshii uu ka yimid ood arki doontaan qalabka ee lagu soo qabtay iyo dadkii waxaas ku shaqaynayay oo alaabtaas falsificationka samaynaya iyo qalabkoodii sidaasoo kaleeto waxyaalaha been abuurka oo la sameeyey waxay isugu jiraan dokumentiyada xafiisyada dawladda ka soo baxa intooda badan jaamacadaha Soomaaliya shahaadooyinkooda maamulka gobolka Banaadir warqadaha dawladda hoose sugnaanta iyo dhalashada caafimaadka wiilasha waxaan ka shaqaynaya shirkadaha ka shaqaynaya odayada kambaniyada u samaystay adeerayaalow meeshaan ha ku kadsoominina iska burburiya makiinadihiinna iyo qalabkiinna kuwa meelaha kale ku haystow si kale oo xaq ah oo xalaal u adeegsada ummadda wax ku bara ummadda ku wacyigeliya ummadda xaqa ugu sheega baadilka iyo dulmiga aad ku samaynaysaan ka dhex baxa haddaa ka dhex bixi weysaan dawladda Soomaaliya dawladnimada aad maqlaysaan waa xoog la sharciyeeyey xoogga la sharciyeeyey dadka inay fuliyaan laga rabana hoggaanka baarista dambiyada si ay diya u horeeyay waa soo qabanaynaa waa la xisaabtamaynaa waa baaraynaa hay-adaha ku shaqada leh ee garsoorkaana u gudbinaynaa ugu dambaystii waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha agaasimaheeda iyo shaqaalaheeda isku duuban iyo qaybta guud taliyaheeda iyo ku-xigeenadeeda guud ahaan oo isku duuban iyo hoggaanka baarista dambiyada CID guud ahaan taliyahooda iyo ku-xigeenadooda saraakiishooda ciidankooda isku duuban oo runtii aan dhihi karo shaqadan si saddex geesood ah isaga kaashadeen taas waxay ku tusaysaa wada shaqaynta buuxda waatay daawadayaal qaybihii dambe ee barnaamijka wardoon ayaan isla soo gaarnay markaana xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa ka tacsiyeysay geeridii ku timid Allah u naxariistay wariye Cawil Daahir Salaad oo kamid ahaa dadkii maanta ku dhintay qaraxyadii ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya wariye Cawil Daahir Salaad ayaa kamid ahaa kuwa ugu caansan wariyaasha Soomaalida waxa uu ka shaqeynayay Allah u naxariistay oo uu kamid ahaa howlwadeennada telefishinka Universal xarunta magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya
gabagabadii barnaamijka wardoon oo aynu isla soo gaarnay waxaa naga xasuusa inaad dib kaga heli kartaan dhammaan qodobadii ku baxay barnaamijka iyo weliba wararkii ugu dambeeyay Soomaalida iyo caalamkaba ciwaanada aan ku leenahay baraha bulshada sida Facebook, YouTube, Twitter iyo weliba boggeena online website-ka oo ah somalicable.tv tan inta kulmi doona barnaamijkan kan xiga hadii Allah wadala laga helo waa aniga Cabdiqaadir Umar Cabdulle fiidka iyo weliba saaxiibka Ismaaciil Olraydo farsamada iyo kaamirada inoo joogay waxaan idinkaga tagay inaad ku mahadsantiin daawashadiina haboon ee sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.